madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay xogayaha gaashaandhigga waddanka Mareykanka Foos Ibraahim Ciid ayaa soo koobaysa. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis iyagoo ka wada hadlay arrimaha ammaanka iyo dib u dhiska ciidamada xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa meelaha ay gacanta ku hayaan. xogayaha difaaca Mareykanka oo shalay khudbad ka jeediyay shirkii London ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay qorshaha amniga qaranka. Jim Mattis ayaa sheegay inay taageersan yihiin qorshaha amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya soo diyaarisay, waxaana uu tilmaamay inuu Mareykanka sii xoojinayo tababarka ciidamada Soomaaliya. bishii hore ayay ahayd markii Mareykanka ciidamo u diray Soomaaliya kuwaas oo tababaro siinaya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, iyadoona askari ciidamada sida gaarka ah u tababaran lagu dilay hawlgal ay ku taageerayeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya kuwaas oo weerar ku qaaday saldhig al-shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose. Foos Ibraahim Xuseen, wararka STN.